koobka adduunku hubaal waa dhacdada ciyaareed ee ugu weyn dunida oo dhan taariikhdiisa oo dhanna 79 wadan ayaa ka qayb qaatay waxaana koobkii adduun ee ugu dambeeyay oo kaliya daawaday in ka badan 5 bilyan oo qof taasoo ka badan 60% dadka dunida oo dhan sheekada koobka adduunkuna xaqiiqdii waa ay ka xiiso badan tahay inta aad qiyaasi karto waa sheeko ay ka buuxaan muran siyaasad xiise iyo jacaylka kubadda quruxda badan tanina waa sheekada koobka adduunka oo dhameystiran Pereira hit by James! Oh, what a goal! Surely now, Spain have won the World Cup. Argentina campeón del mundo! Argentina campeón del mundo! sheekadani waxay ka soo bilaabanaysaa ku dhawaad 100 sano ka hor inta aan koobka adduunka xitaa wax fikrada laga haysan waayo sanadkii 1914 FIFA waxay go'aansatay inay u aqoonsato Olombikadu inay tahay ciyaaraha ugu weyn kubadda cagta taasoo macnaheedu yahay in wadanka ku guuleysta tartanka Olombikada loo aqoonsado horyaalka dunida taasina waxay socotay in ka badan 20 sano ilaa iyo 28 May 1928 markaas oo madaxweynihii FIFA ay waqtigaasi Jules Rimet uu lahaa fikrad dahabi ah oo bedeshay mustaqbalka kubadda cagta kadib markii uu arkay sida ay kubadda cagta caalamku u dareemaysa baahi ka weyn ciyaaraha Olombikada waxa uu rabay inay FIFA martigeliso tartan caalami ah oo ka madax bannaan Olombikada taasi ayaana dhalisay fikradda koobka adduunka waxay noqotay mid dhab ah oo si buuxda u hirgasha muddo 2 sano gudahooda iyadoo koobka adduun ee ugu horeeyay la qabtay sanadkii 1930 koobkan waxaa martigeliyay Uruguay maadaama ay ahaayeen horyaalkii dunida ee waqtigaasi iyagoo ku guuleystay tartankii Olombikada ee kaasi ka horeeyay goobta tartankuna dhibaato ayay ku noqotay wadamada Yurub sababtoo ah safar aad u dheer ayay u soo marayeen dhinaca badda Yurubna waxay markaasi ku jirtay qalalaasa dhaqaale sidaas awgeedna dalal badani ma aysan awoodin inay safarkaasi soo gaaraan tartankii ugu horeeyayna waxaa ka qayb galay kaliya 13 dal 2 waqooyiga Ameerika ah 4 Yurub ah iyo 7 koonfur Ameerika ah Masar waxay ahayd inay noqoto wadanka kaliya ee Afrika ka socda balse cimilada oo xumeyd awgeed markabkoodu waa u daahay sidaas daraadeedna tartanka waa ay ka hareen Japan iyo Thailand oo iyagana dalalka Asia looga yeeray labaduba waa ay ka hareen tartanka ka hor inta uusan furmin sidaas darteedna 13 Juulaay 1930 koobkii adduunka ee ugu horeeyay ayaa si rasmi ah u bilowday waxaana 13 dal ay ku dagaalamayaan cid loo caleema saari doono horyaalka dunida qaab dhismeedka tartanku waxa uu ekaa mid ka haatan aanu naqaano iyada oo la sameeyay 4 group cidda ka soo baxdana ay u gudbayaan 4 dhamaadka si ay u ciyaaraan kulamo knockout ah finalkiina waxaa fooda istaray martigeliyaasha Uruguay iyo Argentina Uruguay ayaana ku garaacday 4-2 iyadoo 93,000 oo qof ay joogeen garoonka taasoo ka dhigtay horyaalka dunida markii ugu horeysay waxay ku guuleysteen koobkii asalka ahaa kaasi oo ka duwanaa kan maanta aan aqaano 4 sano kadibna koobkii xigay waxa uu ka dhacay Talyaaniga iyadoo la doonayay in loo dhigo si cadaalad ah oo mar lagu qabto Yurub marna lagu qabto Koonfur Ameerika markan waxaa jiray dalal badan oo xiiseynaya in la qabto marxaladda isreebka waxaana 16 dal ay u soo baxeen tartanka kama dambaysta qaabkan ayaana la isticmaalay ilaa iyo ballaarintii 1982 Uruguay oo haysata koobka ayaa ka carootay sida Yurubiyaanku aysan u imaan tartankii hore sidaas darteedna waxay go'aansadeen inay ka baqdaan tartanka Masar waxay noqotay dalkii ugu horeeyay Afrika ee ka qayb gala tartanka balse Hungary ayaa ku reebtay wareegyadii koobaad finalkii sanadkaana waxa isku arkay Talyaaniga iyo Czechoslovakia waxaana ciyaarta lagu go'aamiyay waqtiga dheeriga Italy ayaana ku guuleysatay 2-1 taasoo ka dhigtay wadanka Yurub ee ugu horeeyay ee ku guuleysta markii la gaaray 4 sano kadibna Faransiiska ayaa martigeliyay koobka adduunka 1938 balse tani waxay dhalisay muran sababtoo ah waxay jibisay heshiiskii ahaa in tartanku uu mar baqaarad ka dhaco sidaas darteedna Argentina iyo Uruguay labaduba ay diideen inay ka qayb galaan tartanka waxaa ka qayb galay 15 dal maadaama Austria xilligaasi lagu daray Germany ka hor dagaalkii dunida Italy mar kale ayay gaartay finalka waxayna si fudud 4-2 u garaaceen Hungary taasoo ka dhigtay inay qaadaan koobka adduunka markii labaad oo xiriir ah markii 3 koob adduun oo xiriir la qabtay caalamka oo dhani aad ayuu u xiiseynayay tartanka xiga laakiin nasiib darro aad bay u adkaatay in la qabto koobka adduunka mar kale waayo dagaalkii labaad ee dunida ayaa socday sidaas daraadeedna taageerayaasha iyo ciyaartoydu waxay sugayeen 12 sano oo kale ka hor inta aan tartanku mar kale soo laaban markii la soo gaaray 1950 koobka adduunku waxa uu ku soo laabtay Koonfur Ameerika Brazil ayaana martigelisay markaana waxaana dunidu ay marxaati u noqotay tartankii ugu weynaa ee ugu yaabka badnaa dunida Hindiya ayaa diiday inay ka qayb gasho tartanka kadib markii loo sheegay inaysan cagacadaan ku ciyaari karin dhab ahaantiina Italy waxay ahayd horyaalka waqtigaasi waxayna ahayd lama filaan inay ka soo muuqato tartanka
maadaama 2 sano ka hor masiibadii diyaaradda ee Turina ay dishay inta badan xidigihii xulka qarankooda sanadkan sidoo kale waxa markii ugu horeysay dalka boqortooyada Ingiriiska uu ka soo qayb galay tartanka maadaama ay hore uga biyadiideen inay ku biiraan FIFA arrimo siyaasadeed awgood finalkiina waxa ku loolamay Uruguay iyo martigeliyihii Brazil Uruguay ayana ku garaacday 2 gool iyo 1 iyaga oo ku ciyaaraya garoonka Maracana oo buuxa ay joogeen 173,000 qof taasoo ka dhigtay finalkii ugu daawashada badnaa waqtigaasi tartankan waxa Brazil kabtan u ahaa hayagoodii Leonidas kaasi oo qaaday kabta dahabka isagoo noqday goolaliyaha ugu sareeya ee tartanka haddana aanu gudubno 1954 koobka adduunka waxa lagu qabtay Switzerland waana tartankii ugu goolasha badnaa ee abid la qabto waxa sidoo kale uu kani ahaa koobkii ugu horeeyay oo si rasmi ah loogu baahiyo telefishinada taasoo ka dhigtay inuu adduunka oo dhan ka noqdo astaan caalami ah oo ay dadku ka daawan karaan dunida dacaladeeda wareegis damaadkana Austria ayaa tartanka ka cirib tirtay martigeliyihii Switzerland ciyaar aad u xamaasad badan oo ku dhamaatay 7 gool iyo 5 gool taas oo ilaa iyo maanta loo aqoonsan yahay kulankii ugu goolasha badnaa taariikhda koobka adduunka Hungary ayaa tartanka ku dhameysatay iyadoo ah wadankii ugu goolasha badnaa 27 gool waxayna uga mahad celinayeen haliyay ay ka mid yihiin Frank Busquets iyo kuwa kale waxay u egtahay inay ku guuleysan doonaan tartanka gaar ahaan markii 10 daqiiqo gudahood ay 2 gool ku dhaliyeen waqtigii finalka laakiin West Germany oo la ciyaaraysay waxay lahayd qorshe ka duwan waa ay ka soo laabteen 2-0 si ay uga adkaadaan Hungary iyagoo ciyaarta ku dhameeyay 3 gool iyo 2 gool waxaana goolka guusha u dhaliyay xidiga la yiraahdo Helmut Rahn ciyaar laga yaabaa inay tahay tan ugu caansan taariikhda kubadda cagta ee Jarmalka maalintaana Jarmalku waxay u yaqaanaan mucjisadii Berlin finalkani waa uu fiicnaa ha yeeshee ma ahayn kii ugu fiicnaa abid waayo wali halkaas ma aanan gaarin intaasna waxaa dheer inay wali inoo harsan yihiin 18 koob adduun oo aan ka hadli doono kuwaas oo ay ku jiraan fadeexadii Argentina iyo khiyaanadii Maradona ciyaaryahan la dilay sababtoo ah inuu gool iska dhaliyay iyo xitaa mustaqbalka koobka adduunka maadaama 2026 ay 3 wadan wada martigelin doonaan sanadkii 1958 koobka adduunka waxa martigeliyay Sweden taasoo mar kale ka dhigtay in tartanka 2 jeer oo xiriir uu ka dhaco gudaha Yurub adduunkuna kuma farxin arintaasi sida daraadeedna FIFA waxay go'aansatay inay tali noqoto markii ugu dambeysay waxayna soo saareen sharci ah in tartanka marba uu qaarad u wareego waxa sidoo kale xilligaasi dunidu ay aragtay 17 sano jir Brazilian oo la yiraahdo Pelé kaasi oo dunida kubadda cagta ku shiday qaab awooda waxa uu dhaliyay goolal dhammaan ciyaarihii Brazil ee knockout-ka oo ay ku jiraan 2 gool oo ka dhaliyay finalka iyadoo Brazil 5-2 ay ku garaacday Sweden waliba si fudud taasoo ka dhigtay koobkii ugu horeeyay 3 koob ee uu ku guuleystay waxa uu heliyay xidiga kale oo reer Brazil sida Zagallo kaasi oo mustaqbalka noqday ninkii ugu horeeyay ee ku guuleystay koobka adduunka isagoo ciyaaryahana kadibna isagoo tababara ah 12 sano kadib xulka Brazil inkastoo Pelé qodiisu uu dhaliyay goolal badan waxa jiray weeraryahan reer Faransiis ah oo taariikh sameeyay kaasoo la yiraahdo Justin Fontaine kaasoo dhaliyay 13 gool har tartan waxaana ay ka dhigan tahay inuu dhaliyay wax ka badan 2 gool ciyaar kaste rikoorkaasina ilaa iyo maanta lama jabin haddana aynu u gudubno koobka adduunka 1962 oo lagu qabtay Chile kaasi oo Brazil ay ku guuleysatay koobkoodii labaad oo xiriir ah iyaga oo garaacay Czechoslovakia finalkii xaqiiqdii tartankani inuu dhaco waxay ahayd mid mucjiso ah sababtoo ah 2 sano ka hor waxa dhacay dhulgariir weyn oo ka dhacay Chile kaasi oo burburiyay dhammaan kaabayaashii tartanka oo dhan si kastaba ha ahaatee si mucjiso leh ayay ugu guuleysteen inay ku diyaariyaan waqtigaasi yar garoomadii lagu ciyaari lahaa inkastoo Brazil ay ku guuleysatay Pelé waa uu liitay tartankan sababtoo ah dhaawacyo nasiib wanaagsi waxay haysteen xidiga kale sida Fafa iyo sidoo kale Amarildo oo guusha u horseeday laakiin Pelé keligii ma uusan ahayn xidiga liitay sidoo kale Leif Yashin oo ahaa goolhaye ugu fiicnaa taariikhda kubadda cagta waqtigaasi waxa sidoo kale uu la kulmay dhaleecayn xoogan tartankan waxa lagu dhaleeceeyay inuu ahaa mid daafacsho xad dhaaf ah iyo waliba rabshado kuwaas oo ugu dambeyntii gaari heerka ugu sareeyay ciyaarta koobaadna ilaa maanta waxa loo yaqaanaa dagaalkii Santiago warbaahinta Talyaanigu waxay qorayeen maqaalo aflagaada oo ka dhanaa Chile taasi oo dhalisay caro weyn waxayna ciyaartooyda labada dal isku dayeen inay si ula kac isu dhaawacaan midba midka kale Chile waxay ku badisay 2-0 waxaana Talyaaniga la siiyay 2 kaar oo roos ah ciyaartooydoodana garoonka waxa looga saaray iyada oo booliis ilaalinayo markii la soo gaaray 1966 kubadda cagta ugu dambeyntii waxay ku laabatay gurigeedii maadaama Ingiriisku ay ku guuleysteen koobka ciyaar final oo cajiib ahayd Ingiriisku waxay 4-2 ku garaaceen West Germany iyaga oo 2 gool dhaliyay waqtiga dheeriga waxaana hat-trick dhaliyay xidigoodii Geoff Haristi halka Bobby Charlton iyo Gordon Banksna ay wacdara dhigeen
laakiin xidiga ugu wanaagsan ee tartanku xitaa ma uusan joogin finalka waxaana uu ahaa halyigii Portugiiska ee Eusebio oo noqday goolaliyaha ugu sarreeya tartanka. Koobkan waxaa sidoo kale lagu xasuustaa in England ay noqotay dalkii ugu horreeyay ee samaysta astaanta rasmiga ah ama loogada iyo sidoo kale maskarada rasmiga ah ee loo yaqaan mascotka. North Korea ayaa noqotay wadankii ugu horreeyay ee Asia ee gaara quarter finalska iyaga oo reebay Italy. South Africa iyagana tartankan waxaa laga mamnuucay 26 sano sabab la xiriira siyaasadda midabta koorka oo ay diideen. Markii la soo gaaray 1970kiina waxaa lagu qabtay Mexico taasi oo ka dhigtay tartanka markii ugu horreysay oo lagu qabtay waqooyiga America. Brazil waxay ku guuleysatay koobkoodii saddexaad afartii tartan ee ugu dambeeyay waxaana ay ka dhigtay koobkii saddexaad ee Bailey. Waxaa tababaro u ahaa isla Zagallo kaasi oo koobkan 16 sano ka hor qaaday isagoo ciyaaryahana waana ninkii ugu horreeyay ee sidaasi sameeya. Finalkii Brazil waxa ay si fudud 4-1 ugu dhufatay Italy. Tartankaana waxaa kaloo lagu xasuustaa semi-finalkii Jarmalka galbeed iyo Italy. 5 gool ayaa lagu dhaliyay waqtiga dheeriga ah. Frank Beckenbauerna waxa uu ciyaarta ku dhameystay isagoo gacantu ay jaban tahay maadaama ay Jarmalka bedelkii ka dhamaadeen. Si kastaba ha ahaatee dadaalkiisu ma uusan noqon mid waxtar leh oo Jarmalku waa laga adkaaday inkastoo ay haysteen goolaliyaha ugu sarreeya ee tartanka Gerard Müller. 1974 Jarmalku ma niyad jabin sababtoo ah 4 sano kadib iyaga ayaa martigeliyay koobka adduunka waxayna soo laabteen iyagoo ka xamaasad iyo xoog badan sidii hore waxayna 2-1 ku garaaceen Netherlands si ay u qaadaan koobka. xulka Netherlands waxa ay bedeleen kubadda cagta adduunka iyaga oo la yimid falsafada loo yaqaan total footballka oo hogaaminaya Johan Cruyff laakiin way ku adkaatay inay ka adkaadaan kooxdii Jarmalka ee xidigu kamid ahaayeen gaar ahaan Gerard Müller iyo Frank Beckenbauer oo ka awood badan sidoodii 4 sano ka hor 1970kii. waxa kale oo koobkan lagu xasuustaa inuu ahaa kii ugu adkaa ee Yurub ay gashay isla reebka ugu adag sababtoo ah Italy iyo England ayaa la geliyay isku hal group taasoo macnaheedu yahay in mid ka mid ah labadii wadan ee hore ugu guuleystay koobka adduunka uu ka maqnaan doono tartanka xiga. Inkastoo England ay guuleysatay 5 ka mid ah 6 ciyaarood isla reebka haddana waa ay hareen. waxaase ka sii yaabadnaa isku dayii u soo bixitaanka koobka adduunku inuu noqday mid ka sii adag sidii hore sababtoo ah waxaa jiray 95 wadan waa qaab rikoora kuwaas oo u loolamaya inay ku soo baxaan kaliya 14 boos maadaama waqtigaasi xulka koobka difaacanaya iyo martigeliyuhuba ay si toos ah ugu soo bixi jireen tartanka xiga. tartankaana waxaa martigelisay Argentina halkaasna waxaa mar kale martigeliyaashu ay kor u qaadeen koobka iyaga oo guuldarro dhigay xulka Netherlands ciyaar finalkii ku dhamaatay 3 gool iyo 1 kadib 2 gool oo yimid waqtiga dheeriga ah waxayna ahayd finalkii labaad oo xiriir ah oo Hollandiisku ay qasaarayaan taasoo ka dhigtay in falsafadii total footballku ay u wakaatay guuldarro dhameystiran. Mario Kimbis oo ahaa xidig Argentinian ah ayaa ku guuleystay kabta dahabiga ah ee tartanka isagoo oo dhaliyay 6 gool guud ahaan tartankaana waxaa sidoo kale ku jiray 2 wadan oo markii ugu horeysay ka qayb galay waana Iran iyo Tunisia waxaana guushii Tunisia ee Mexico ay ka dhigtay xulkii ugu horeeyay ee Afrika ah oo abid guul ka gaara koobka adduunka. laakiin kan waxa uu noqday koobkii adduunka ugu dambeeyay ee xulal intaas leeg ay ka soo qayb galaan sababtoo ah 1982 tartanka waa la ballaariyay waxaana la gaarsiiyay ilaa 24 wadan taasoo macnaheedu yahay in wadamo badan ay fursad u heli doonaan inay ka qayb galaan tartankan caalamiga. tartankan waxaa martigelisay Spain waxaana ballaarintani ay keentay isbedel ku yimid hanaanka tartanka. 24 wadan ayaa loo kala saaray 6 group mid kastana waxa uu ka koobnaa 4 dal. labada xul ee ugu sareysa group kastana waxay u soo gudbayeen wareegga xiga. markaasna waxaa mar kale loo qaybinayay 4 group oo min 3 dal ah. guuleystayaasha 4taasi group ayaana u soo baxay semi-finalka kadibna waxa la ciyaarayay semi-final iyo final. dabcan waa arrin xogaa wareer ah laakiin waxaan rajaynayaa inay ku cadaatay. hadda maadaama ay soo kordheen 8 dal waxaan arkaynaa 5 dal oo markii ugu horeysay ka qayb galaya tartanka waa Cameroon, Algeria, Honduras, New Zealand iyo Kuwait. waxa kale oo lagu arkay rikooro cusub gaar ahaan kulankii dhexmaray xulka qaranka Hungary iyo El Salvador kaasi oo Hungary ay ku adkaatay 10 gool iyo 1 ilaa iyo haatanna guushaasi waa tii ugu weynay taariikhda koobka adduunka. Pablo Rossi ayaana ahaa xidiga tartanka isaga oo 3 ka dhaliyay Brazil si uu Italy ugu hogaamiyo finalkii West Germany kaasi oo Italy ay ku guuleysatay 3 gool iyo 1 gool. kadib hal tartan oo kaliya oo lagu ciyaaray hanaankaasina FIFA waxa ay bedeshay mar kale qaabkii 1986 koobkii adduunka ee Mexico ay martigelisay. markan waxaa la tirtiray qaabkii labada group ahaa waxaana loo bedelay wareeg nag-awda. sidaas daraadeedna waxay noqotay group stage wareegga 16 quarter final, semi final ilaa iyo final. Jose Batista
ayaa sameeyay rikoor cajiiba isagoo noqday ciyaaryahanka ugu degdega badnaa ee casaan la siiyo waxaana ciyaarta looga saaray kaliya 56 ilbiriqsi markii ay Uruguay la ciyaaraysay Scotland. Argentina ayaa sanadkan ku guuleysatay koobka adduunka iyagoo ay sabab u ahaayeen laba dhacdo oo cajiiba. mid waxay ahayd khiyaanadii gacanta ee Diego Maradona iyo sidoo kale bandhigiisa garoonka iyagoo oo 3-2 ku garaacay West Germany ciyaartii finalka laakiin muranka dhabtahay waxa uu ka dhacay quarter finalka ciyaarta Ingiriiska iyo Argentina halkaasi oo Maradona uu dhaliyay 2 gool oo ilaa ay haatan kamid ah kuwa ugu caansan taariikhda koobka adduunka. goolkiisa ugu horeeyay waxa uu ahaa gacan cad oo gool ku dhaliyay laakiin garsooruhu ma uusan arkin. kan labaadna waxa uu ahaa goolka qarriga isagoo kubad ka soo qaatay bartamaha garoonka waxa uu goosmo cajiiba ku dhaafay 5 ciyaaryahan oo Ingiriis ah si fiican ayuu u dhameystiray. inkastoo Ingiriisku ay ku hareen quarter finalska haddana Gary Lineker ayaa ku guuleystay kubadda dahabka ee gool dhalinta isagoo oo dhaliyay 6 gool laakiin taasi ma iloosin gacantii goolka ee Maradona. 1990 murunkii ugu weynaa ayaa dhacay xilligiisa reebka sababtoo ah goolhayihii Chile ee Robert Rogers ayaa noloshiisa oo dhan laga mamnuucay koobka adduunka. sidoo kale Chile ayaa laga saaray tartanka markii Chile iyo Brazil ay wada ciyaareen. Rogers waxa uu arkay dabqiiqaya iyo waxyaalo la mid ah oo ay taageerayaashu ku soo tuureen garoonka waxaana isku dayay inuu fursada ka faa'iideysto waxaana uu dhaawac gaarsiiyay jirkiisa. qorshihiisuna waxa uu ahaa in Brazil laga saaro tartanka waxayna u muuqatay in Brazil tartanka laga saari doono laakiin nasiib wanaag sawirqaada ayaa muuqaal ka duubay markii uu khiyaanadaasi sameeyay sidaas daraadeedna waxa laga mamnuucay ciyaaraha noloshiisa oo dhan Chile waxa laga saaray tartanka. haddii aynu u gudubno gudaha tartanka wixii ka dhacayna Italy ayaa martigelisay mar kalena West Germany iyo Argentina ayaa ku kulmay finalka hayeeshee markan West Germany ayaa hal iyo bar ku qaaday koobka kanina waxa uu noqday koobkii goolasha u yar la iska dhaliyay abid laakiin laba ciyaaryahan ayaa soo jiitay indhaha taageerayaasha. waa xidigii reer Talyaani ee Salvatore Schillaci oo ku guuleystay kabta dahabiga ah iyo xidigii reer England ee Paul Gascoigne oo bandhigiisa ay dadku aad ugu raaxaysteen. Cameroon waxay noqotay xulkii ugu horeeyay Afrika ka socda oo gaara quarter finalka taasoo muujisay kororka kubadda cagta Afrika inkastoo aysan wali gaarin heerarka Yurub iyo Koonfur Amerika. markii la gaaray 1994 koobka adduunka waxa martigeliyay Mareykanka waxaana uu noqday kii ugu daawashada badnaa taariikhda 3.6 milyan oo qof ayaa toos uga daawatay garoomada. wax badan ayaana sanadkan dhacay kadib group stage-ka Diego Maradona ayaa lagu helay drogo waxaana laga saaray tartanka. taasna waxa ay jab weyn ku noqotay Argentina isla kulankii xigay markii laga saaray. Oleg Solonki oo Ruushana waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 5 gool ka dhaliyay hal kulan oo koob adduuna isagoo sidaas sameeyay ciyaartii Cameroon. isla kulankaasna Rugal Milla ayaa gool u dhaliyay Cameroon isagoo oo noqday ciyaaryahanka ugu da'da weyn ee gool ka dhaliyay koobka adduunka isagoo oo jira da'da 42 sano. finalkiina waxay Brazil la ciyaartay Italy waxaana 90 daqiiqo oo lagu daray 30 dheeriya ay ku dhamaadeen eber iyo eber. tani waxay ahayd finalka kaliya ee aan gool la iska dhalin iyo sidoo kale finalkii ugu horeeyay ee lagu go'aamiyay rigoorayaal waxaana 3-2 rigoora ku qaaday Brazil. Romania ayaa ku guuleystay laacibka tartanka sidoo kalena waxa uu kabta dahabiga la wadaagay 2 xidig oo kale. laakiin murugada iyo niyadjabka ugu weyn ee ka dhacay tartankaasi waxa la kulmay xulka qaranka Colombia. Andreas Escobar ayaa loo dilay sababtoo ah bandhigiisii tartankaasi. Colombia waxa loo arkayay jiil dahabi ah oo dalka oo dhan waxa ay filayeen waxqabad heer sare ah. xilligaasna Colombia waxay ku jirtay xaalad cakiran oo burcad ayaa dalka ka talinayay. sidaas daraadeedna koobka adduunka waxa uu ahaa iftiinka dadka reer Colombia ay fiirsanayaan hayeeshee waxay si lama filaan ugu hareen heerka gurubyada waxaana daqiiqadii ugu adkaay ahayd gool uu iska dhaliyay kabtankoodii Andres Escobar kulan ay la ciyaarayeen Mareykanka. markii ay dalkoodii ku noqdeenna isagoo oo baar ka soo baxay ayaa la toogtay oo la dilay waxaana la rumaysan yahay in dilkaasi uu ahaa mid ay abaabuleen burcadii sababtoo ah waxa la sheegay inay lacaga khamaara dhigteen kulankaasi in xulku ay guuleysanayaan inkastoo taasi aan si rasmi ah ilaa iyo haatan loo cadeyn. si kastaba ha ahaatee inkastoo ay dhaceen musiibooyinkaasi kubadda cagtu ay sii noolaatay waxaana Colombia dhab ahaantii ay u soo baxday koobkii adduunka ee xigay 1998 oo France ay martigelisay. balse mar kale waxa lagu reebay heerka gurubyada nasiib wanaagsan sanadkan wax musiibo ah oo xigtay haritaankoodii ma jirin. laakiin koobkan waxa uu keenay isbedel kale oo ku yimid hab dhismeedka tartanka sababtoo ah ugu dambeyn waxa la gaaray ballaarintii looga dhigay 32 dal. hanaankan waa mid aynu naqaano jilalkeenan dambe markii ugu dambeysay ee lagu ciyaarina waxay ahayd koobkii adduunka ee la soo dhaafay 2022. ballaarintan cusubna waxay ogolaatay in 2 dal oo isku qaarada ay gari karaan hal group arrintan horey mamnuuc u ahayd. tartankan waxa kale oo dhacay dhacdooyin lagu xasuusto gaar ahaan midii uu sameeyay xidiga Matthias oo noqday ciyaaryahankii ugu soo muuqashada badnaa taariikhda koobka adduunka isagoo oo ciyaaray 25 kulan
wuxuuna ka qayb galay 5 tartan oo kala duwan oo koob adduuna. Finalka sanadkan waxaa isku arkay Brazil iyo Faransa iyadoo labada xulba ay wateen ciyaaryahano waaweyn oo waqtigaasi aad loo yaqaanay. Zidane ayay wadatay Faransa, Brazilna waxay wadatay Ronaldo Nazario. Saacada kooban ka hor finalkana Ronaldo Nazario ayaa la kulmay suuxdin taasoo ahayd mid gabi ahaanba ay u muuqatay inay ka reebayso ciyaaristiisa finalka. hayeeshee qaab muran dhalisay waxa lagu arkay line-upkii koobaad ee kulanka finalka waxqabadkiisa finalkuna waxa uu ahaa mid ka hooseeya heerkiisii tartanka intiisa kale. Zidane ayaa u soo baxay Faransa waxa uu dhaliyay 2 gool finalkii. Faransana waxay ku guuleysatay koobkoodii ugu horeeyay ee koob adduuna. Kooxda Faransa waxa sidoo kale ay haysatay Didier Deschamps kaasi oo 20 sano kadib noqon doona qofkii labaad ee ku guuleystay koobka adduunka isagoo ciyaaryahan ah marna isagoo tababara. Si kastaba ha ahaatee inkastoo ay Faransa ka adkaatay, Brazil waa ay soo laabatay waliba iyadoo sidoo hore ku xoog badan. Koobkii kaasi xigayna waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee lagu qabtay qaaradda Asia waxaana si wada jir u martigeliyay South Korea iyo Japan. Brazilna waxa ay ku soo baxday xulkii xooganaa ee lagu yaqaanay waxaana weerarkooda hogaaminayay 3 ciyaaryahan ee magacoodu ka bilowda xarafka R waa Ronaldo, Ronaldinho iyo Rivaldo. Saddexdaasina Brazil waxay ku hogaamiyeen inay tartankaasi ugu dambeyn ku guuleystaan waxaana ay ku garaaceen 2 gool iyo waxba Jarmalka finalkii. Ronaldo Nazario ayaa ku guuleystay kabta dahabiga ah laakiin sidoo kale abaalmarinta laacibka tartanka waxaa la siiyay xidigii Jarmalka Oliver Kahn. South Korea waxay noqotay dalka kaliya ee Asia ugu waxqabadka wanaagsan taariikhda iyagoo gaaray semi-finalka. Guul weyn ayayna u tahay qarankan yar ee kubadda cagta. Tartankii xigay 2006 tartankan waxa martigeliyay Jarmalka. Ronaldo Nazario ayaa noqday goolaliyaha ugu weyn taariikhda koobka adduunka isagoo oo dhaliyay goolkiisii 15aad waxaana uu jabiyay rikoor hore u yaalay. sanadkan waxa uu ahaa sidoo kale kii ugu kaararka badnaa iyadoo la bixiyay 345 jaalle waana rikoor ilaa iyo maanta. adkaanta tartankaana waxaa si buuxda loogu arkay kulankii dhex maray Portugal iyo Netherlands oo loo bixiyay dagaalkii Nuremberg kadib markii la bixiyay 4 kaaro casaana taasoo ka dhigtay kulankii ugu roosaha badnaa taariikhda. koobkan sidoo kale waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ka qayb galaan Messi iyo Ronaldo oo labadooduba ka soo muuqan doona 5 koob oo dambe. laakiin sanadkan midkoodna ma uu soo iftiimin sida lagu yaqaano. dhammaan sheekaduna waxay ku soo ururtay finalkii Talyaaniga iyo Faransiiska oo Zidane ayaa ku furtay ciyaarta rigoradiisii caanka ahayd ee birta kore uu ku garaacay kadibna dhameystiray waxaana uu muujiyay geesinimadiisa. laakiin 10 daqiiqo ay ka harsan tahay waqtigii dheeriga ahaa ciyaartuna ay tahay 1-1 Zidane waxa uu ardidii caanka ahayd ku dhuftay Marco Materazzi isagoo ka jawaabaya aflagaado uu geystay waxaana isla markiiba la siiyay kaarka casaanka. ciyaartuna waxay ku dhamaatay rigore waxaana looga mahad celiyay Gianluigi Buffon oo badbaadiyay Talyaaniga una qaaday koobkoodii afraad halka Zidane uu ku guuleystay bilada qalinka ah isla markaana uu ku waayay laacibkii tartanka oo xaq u lahaa maadaama uu qaatay kaarka roosada. markii la gaaray 2010kiina Spain ayaa gaartay heerkeeda ugu sareeya ama jiilkii dahabiga ahaa waxaana ay qaadeen koobkoodii ugu horeeyay ahna midka kaliya ay haystaan iyagoo oo ku helay gool dhaliyay daqiiqadii 116aad oo dhaliyay Andres Iniesta. waxaana finalka ay ku garaaceen Netherlands taasoo ka dhigtay guuldaradii saddexaad ee ay final la kulmayaan Hollandiisku iyagoo aan wali ku guuleysan hal koobna. waa lagu maadsaday waxaana lagu sheegay sida ay tahay Tottenham waqtiga casriga ah waayo markasta finalka ay ugu daraystaan. koobkan waxa uu ahaa kii ugu horeeyay Afrika lagu qabto gaar ahaan South Africa. North Korea waxay sameeyeen taariikh xun iyagoo 16 gool laga dhaliyay 3 kulan oo kaliya taasoo ah rikoor dhinaca xumaanta ah. laakiin haddii hal shay lagu xasuusto tartankan ma ahayn ciyaartoyda ama tababarayaasha waa kubadda. Jubilee kubadda loo yaqaano waxay ahayd kubad loo sameeyay tartankan waxaana loogu yeeray kubaddii naarta ahayd sababtoo ah waxay ahayd mid aan la saadaalin karin. ciyaartoydu way necbaayeen laakiin daawadayaashu waxay u ahayd mid cajiib ah waxaana laga yaabaa inay ahayd kubaddii ugu caansanayd taariikhda kubadda cagta. kadibna waxaa la gaaray koobkii adduunka ee 2014 Brazil kaasi oo finalku uu ku bilowday eber 90 daqiiqo sidoo kalena si lamida koobka ka horeeyay waqtigii dheeriga ahaa iyadoo wax yar ay ka harsan yihiin waxaa yimid goolkii Mario Götze kaasi oo soo afjaray riyadii Argentina iyo Lionel Messi. Messi waxa uu ku guuleystay laacibka tartanka Neuerna waxa uu qaatay gacanta dahabka ee goolhayaha ugu fiican halka James Rodriguez uu noqday xidiga soo ifbaxaya ee ku guuleystay kabta dahabiga. sidoo kale Miroslav Klose ayaa jabiyay rikoorkii Ronaldo Nazario isagoo gaaray 16 gool oo koobka adduunka taasoo ka dhigtay goolaliyaha ugu sareeya abad. teknolojiyadda goal line technology ayaa markii ugu horeysay loo adeegsaday ciyaaraha taasoo meesha ka saartay khaladaad badan oo garsoorayaasha ka dhici jiray. laakiin waxa ugu xasuusta badan tartankan waxay ahayd semi-finalkii Jarmalka iyo Brazil waxay ahaayeen martigeliyaasha waxayna ahaayeen kuwa ugu cadcad inay final gaaraan gaar ahaan iyadoo uu Neymar hogaaminayo.
laakiin Neymar ayaa si xun u dhaawacmay waana uu ka maqnaa semifinalka laakiin qofna ma filayn in xitaa Jarmalku ay ku garaaci karaan 7 gool iyo hal Brazil tanina waxay ahayd guuldaradii ugu xanuunka badnayd ee taariikhda kubadda cagta Brazil waxaan ku sii dhawaaneynaa waqtigan casriga ah balse inta aanan u gudbin koobkii ugu dambeeyay waa inaynu tagnaa tartankii ka dhacay Ruushka 2018 Ingiriisku sanadkan waxay ugu cadareeyeen si cajiib ah waxayna gaareen semifinalka dadkuna waxay ku dhawaaqayeen mar kale it's coming home laakiin taasi ma dhicin sababtoo ah Croatia ayaa si cajiib ah u reebtay inuu gudubtay finalka iyagoo ahaa koox aan cidina filayn waxa sidoo kale tartanka sanadkan ku soo biirtay fiidiyoga caawiye garsoorayaasha ee VAR loo yaqaano oo markii ugu horeysay ka soo muuqday tartanka koobka adduunka taasoo keentay in rikoor cusub oo dhinaca rigoorayaasha la dhigo maadaama kubadda cagtu ay si tartiib ugu sii socotay inay la saaxiibto tiknoolajiyadda ha noqoto wanaag ama xumaan goolhayaha la yiraahdo Izam al-Haydari ee xulka Masarna waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu da'da weyn ee ka qayb gala koobka adduunka taariikhda isagoo oo jira da'da 45 sano haddaba aynu ka hadalna finalkii Faransa waxay ahaayeen kuwa loo saadaalinayay waxayna la ciyaarayeen Croatia oo ahayd xul mucjiso ah oo halkaasi soo gaaray Luka Modric ayayna taasi uga mahadcelinayeen Faransiisku ciyaartaasi waxay ku adkaadeen 4-2 waxaana maamulayay Didier Deschamps oo ciyaaryahan ahaan uga qayb qaatay guushii 1998 kadib tartankaana magaca qof walba afkiisa ka soo baxay waxa uu ahaa wiilka yar ee tartanka iftiimiyay Kylian Mbappe kaasi oo wax la mid ah taasi sameeyay 4 sano kadib tartankii Qatar 2022 koobka adduunku markii ugu horeysay waxa lagu qabtay wadan ka tirsan bariga dhexe waxaana lagu ciyaaray bishii December sababtoo ah waxa laga fogaanayay kuleylka daran maadaama Qatar aysan haysan garoomo diyaar ah oo tartankaasi ah waxay salka ka soo bilaabeen garoomo wada cusub inkastoo ay jireen murano ku saabsan garoomadooda haddana waxay ahaayeen kuwa casriga oo qurux badan tartankan Messi iyo Ronaldo waxa ay sameeyeen taariikh hay'ashee waa taariikh kala duwan Cristiano Ronaldo waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu badan ee bedel lagu sameeyay taariikhda koobka adduunka 11 jeer ayaa la bedelay 5 koob adduun oo ciyaaray Messi isna waad ogtahay ugu dambeyn waxa uu ku guuleystay koobka adduunka oo ahaa tartankii ugu fiicnaa intii la ciyaaray koob adduun kulan 3-3 ku dhamaaday finalkii Faransa iyo Argentina isla aadeen rigoorayaal Mbappe uu dhaliyay hat-trick finalkii isla markaana uu noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan tartanka laakiin taasi kuma filnayn oo goolhaye Emiliano Martinez ayaa muujiyay geesinimadiisa dhamaadkii ciyaarta iyo rigoorayaashii waxayna Argentina u horseedeen inay ku guuleystaan koobka adduunka haddaba maxaa xiga koobka adduunka 2026 waxa lagu qaban doonaa waqooyiga Amerika waxaana si wada jir u martigelin doona Mexico Canada iyo Mareykanka tartankan waa uu ka ballaarnaan doonaa sidii aan naqaanay ee 32 xul waxaana uu gaaraya ilaa 48 xul kuwaasi oo loo kala qaybin doono 12 group oo min 4 xul ah labada xul ee ugu sareysa group kaste ayaa u soo bixi doona wareegga xiga waxaana ku soo biiri doona 8 xul ee kaalimaha saddexaad ku soo baxa waliba kuwooda ugu dhibcaha badan taasoo la micno ah in ciyaaro badan iyo sidoo kale qalalaasa dhinaca taageerayaasha ah la arki doono haddaba yaa ku guuleysan doona tartanka 2026 haddii Harry Kane uu ka baxay inkaartii Tottenham markaan ma oran karnaa Englandna waa ay ka bixi doontaa dhibaatada sidoo kale Brazil oo xidigada ay yara ay hogaaminayaan dad ayaa qaba kadib 22 koob adduuna Brazil waa dalka kaliya ee ka qayb gashay koob kaste oo koob adduun oo la qabtay Kroos wali waxa uu haystaa rikoorka ninka ugu goolasha badan laakiin Mbappe ayaa u jira kaliya 4 gool taasoo ka dhigaysa inuu u dhow yahay rikoorkaasi inuu jabiyo waxa sidoo kale la leeyahay waa fursadii ugu dambeysay ee Cristiano Ronaldo uu ku qaadi karo koobka dunida adiga maxay kula tahay